السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترين كريم مايو سلامتا مدحدا halkan isugu timi heer caalamiya iyo heer national qaran iyo heer dawladeed oo dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka iyo qaybaha kale oo bulshada oo dhaqanka iyo culimada iyo dumarka iyo dhalinyarada dhammaantiin wayna salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mar labaad marka u horeysa waxaan jeclahay inaan bogaadiyo una duceeyo madaxda la doortay oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen intaba waa dad cusub isbedel cusub oo aqalka golaha wakiilada iyo hoggaanka xukuumadda labadaba ku yimi. ilaahay waxaan uga rajaynayaa inay ku dhammaystaan nabadgelyo iyo khilaaf la'aan shanta sano oo la doortay. haddii ay si fiican wax u qabtaanna dib loo doorto mar labaad. intaasaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. tan labaad waxa weeye dadka halkan maanta isugu yimi oo qaaradaha dibaddaana qaar ka yimaadeen oo halkan ka gabeeyeen oo ay yimaadeen waxa isu keenay waa Soomaalinimo. anuu murtida waan jeclahay laakiin gabayaana maahi mana heeso. odayba waagii tubaakada la cuni jiray lafta lagu noogi jiray ayaa kuwa ku buufiyeen markaasuu yeen anigu tubaakada ma cuno laakiin waxaan jeclahay urkeeda oo magaala iga urtabi. marka anuu ma haysto mana gabyo laakiin waa jeclahay murtida naxwo badan baa ku jira iyo tusaale badan oo xigmada dadka nooca u dhaqmaana waa dadka la yiraahdo intellectual maskaxda ka shaqaysiya way. waxaan jeclahay caawa martida halkan isugu timi mid dalka dibadiisa kuwa shisheeya madaxda halkan oo u sareeya madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul baarlamaanka aqalka sare iyo ku-xigeenka labaad oo baarlamaanka golaha shacabka iyo inta kale oo mas'uuliyiin ah oo ka timi gobolladaba oo aan hore u joogin. waxaan caawa jeclahay halkan inaan ka xuso oo aan u hambaliyeeyo oo ku mahadiyo shariif sheekh axmed madaxweynihii hore oo halkan markii 2012 Soomaaliya ku meelgaarka ahayd oo la yiri meelgaarka ha laga saaro shirkii Garowe 1 iyo Garowe 2 ka qayb galay oo bishii February 2012 markii qoladii 4.5 ka jeclaa hadda qaar iyo muuqdaan madaxda waxaan u maleeyaa inaan dib dambe loogu noqon doonin aan ka fujin weynay 4.5 nidaam qabiiliya oo dadkii kala geeyay oo lagu abtirsanayo. anigu hadda xamar baan joogaa waxaan ka mid ahay aqalka sare marar baa shir la isugu yimaado beesha hebel baa maanta qadale ka soo qayb gal anigu waan diiday maxaa yeelay kuma aan korin nooca qabaliga xisbi hadday ahaan lahayd waan tagi lahaa. marka maalintaas markii aan ka fujin weynay ragga qaarkii hadda meesha ka baxay baan waxaan soo jeediyey madaxweyne aqal sare aan samayn oo 18 gobol oo dalku lahaa markii dawladdii dhacday aynu min 3 ka soo qaadno oo 54 xildhibaan oo aqalka sare aan samayn. way isku waafaqnay sidaas heshiiska lagu qoray. waa ka xumahay in maamulkii madaxweyne xasan sheekh aqalkii sare ka maqnaa aad baan uga xumahay laakiin dib baa laga kabay oo hadduu joogaa. madaxda hadda joogta waxaan u sheegayaa dastuurka siday ugu qoran tahay ha loogu dhaqo oo madaxweyne farmaajo hogaaminayo. aqalkaas sare waa xukuumadda matasha dowlad goboleedyada. khilaafiyaa jira dowladda dhexe waa ku jira dhexdeeda marar badan baa la isqabtay iyo golayaasha qaarkood aqalka muxuu ahay shacabka
laakiin ma rajaynayno insha allahu tacaala inuu khilaaf soo dhex galo aqalka sare iyo xukuumadda dhexe oo federaalka inuu soo dhex galo ma jecelin mana rajaynayno ha laga taxadaro tan kale oo aan ku darayaa waxa weeye anigu waxaan madax ka ahaa khilaafkii soo dhex galay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe bishii September oo lagu shiray Kismaayo guddigii loo saaray xogtii la soo ururshay waanu soo saaray waa documented dowladda dhexena waa haysataa dowladaha xubinta ka ahna waa haystaan laakiin weli fulinteedii looma dhaqaaqin inkastoo ay diyaar tahay weli hadda waxaana markaas socday doorashooyin baa waxay ka socdeen koonfur galbeed Puntlandna waa ku soo dhaweyd laakiin hadda Hirshabeellena xoogaaga ku dhex jira waxaan leeyahay galmudugna kolley waa lagu dhex jiraado madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba labaduba waxay ka yimaadeen galmudug iyaga xilku saaran yahay arrinta in wax ka dhameeyaan anigu diyaar baan u ahay inaan qayb ka qaato daris baana in la dhameeyo dhaqso baan rajaynayaa insha allahu tacaala Kismaayana waa fog yahay doorashadeedu oo hadda wax la sugayo dib loogu dhigo in laga wada hadli waayo maaha waxaan u maleynayaa Axmed waxa weeye August miyam ku xogaa kugu daraa ilaa December ka dib ilaa December haddaan gaarsiino waa laga gaari karayaa marka waxaan rajaynayaa in lagu dhaqaaqo haddaba in markii xukuumadda la dhiso Puntland in hawsha la bilaabo guddiga loo saaro ayaa loo baahan yahay waxaan rabaa oo kale halkan inaan laba arrimood ka soo jeedsho mid waxa weeye ama ha ahaato dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama ha ahaato dowladda dhexe war dastuurka ha lagu dhaqmo qabyo weeye waa run waxbaa ka dhiman oo labada xukun oo xukunka dowladda dhexe iyo xukunka dowladaha xubinta ka ah waxbaa isaga dhex jira waa wax saalan la saari karo muddadiisa haday qaadato laakiin waxa ku qoran baa cid ka badan ba hadii lagu dhaqmaayo khilaafna ma keenayo waxaan rajaynayaa in dastuurka lagu dhaqmo oo siduu yahay loogu dhaqmo oo gudiyadii dastuurka ka shaqeynaya waliba khusuusan guddiga farsamada oo ay ka maqan yihiin xubnihii dowladaha xubinta ka ah dowladda oo farsamada ah inay tagaan oo maamuladuna soo diraan xukuumaduna ay dhexena ay ka hawlgasho gacansiinteeda kharashkooda dejintooda si dowladnimadu u dhisanto haddii kale waa la ceeboobayaa dowladda dhexena waqti wuxuu ka dhamaanaya isaga wadanku dastuurka uusan u dhamaystirnayn dowladii xubnanta ka ahaana iyaguna aan xubnihiiba dirinba oo qaarkoodna mar dambe la diray qaarna aan weliba la dirin ba hadhow eedda la isku riixi doonaa waxaa la oran doonaa maya dowladaha xubinta ka bay ku maqan tahay maya waxay ku maqan tahay dowladda dhexaan wax tarin haddeeraa la wada joogaa maanta ha la galo taasaan anigu taa halka ka soo jeedinayaa waxaa kaloo soo rabaa inaan soo qaado khilaafyada qolooyinka kale oo hadda mucaaradka golaha shacabka ku jira oo qaarkood haddeer halkan joogaan qaarna ayaan ku jirin maanta waxaa meesha loo yimi waxaan anigu isleeyahay niyad sami baa jirtee war ha laga faa'iidaysto ha la soo noqdo hadda masaabax baan maqlaayay masaabaxu niyada ha loo daadejiyo oo hal la ismasaabaxo oo arrinta hal la galo oo aan ka odayayno annagu diyaar baan bawnahay inaan ka odayayno oo gogasha halkaan ba dhigaynaaba laftigeedaba halkan waxaan u maleeyahay xogaa waa lagu nafisi karaayo sida xamar uma dhaxanya badna dhaxanyadu waa ku yaryaryihiin meelaha aan ku arkayo inka waxbaa dhaxanya yaaliyo laakiin inta kale dhaxanya badmi ma yaali marka taasna waxaan rajaynayaa in loo hawlgalo fara isku taagtaag wax ma taro khilaaf adduunkana waa jiraa khilaaf siyaasiya laakiin dariiq loo maruu leeyahay waa axsaab baa isqabata waa laysu amar ku taaglayaa dowladda hadda awoodda badneed dowladaha adduunka khilaaf siyaasiya wuxuu kala dhex galay barlamaankii iyo madaxweynihii kharashkii baaba loo diiday ninka odaga ahaaba meel u dhaqaajiba waayo ya laakiin caqligooda shaqeeya hadda waxaa la kharash waa lagu furay isagana waa tanasule marka tanasulka inaga maxay inoo diiday inaga la tabar yaray baan isu tanasul dowlad xoog leh weeye marka tanasulka la isu yimaado qolada dhalinyarada oo siyaasiyiintana waxaan leeyahay qaylada yareeya rag waaweyn baa joogay annaga muxuu ahay nagu soo xirma ya qaylo wax ma tarto rationality baa la rabaa idinku majority badan baa u baahan tihiin
وكاتش حسابت السوق حدونك هيسو يماد انت اسبان يجنا كل الطريقية وحاي هرايو أن رواينا المشي كسوق هذا هلا كان نبايمي هل كان فرين بو كان دي بدونا كان وانا قبيل تاسو هاد ماشي ويكم غنت maxay tahay hal la raadso midnimadii Soomaaliya oo midnimadii Soomaaliya xagee laga raadinaya wada hadalkii hal la furo Soomaaliland hal la furo diyaar bay u yihiin waa codsanayeen xoogaagan tukaraq halakan isku tuurtuuray iyada xoogaa caqabad u noqotay waxaan abiil u sameeynayaa dawladda Soomaaliland inay arinta ku celiso meeshii awal ay joogtay si wada hadalkii loo furo oo ay isaga tagto tukaraq oo gaarayda ku noqoto ciidamada ka saarto baan mar kale abiil ku celinayaa 10kii bishii January baan taas sameeyay markaasna dawladda dhexe madaxweynuhu aawa markuu hadalkiisa qaaday waa inuu ballan qaadaa meesha waa lagu dhan yahay madaxweynayaal hore iyo madaxweynayaal soo socda iyo kuwa hadda iyo kulli waa lagu dhan yahay iyo beesha ajnabi halkaasna qolooyin hadda danaynaya waa jiraan oo waxa la igu yiri dawladda Turkiga ayaa waxay u xil saartay safiirka Bakar la oran jiray inuu dhexdhexaadiyo hal la ajiib idinka qolaasna ay rajo dhigin wuxuun baa lagu heshiin doonaa wixii dan laga noqoto baa lagu heshiin doonaa waana laga wada qayb gali doonaa dadku waa isku darsamayba hadda dawladahan baa kala xiran mooyee dadku hadda waa isku darsamay magaaladan Garowe iyo Hargeysa waa isu furan tahay daan inta inii sheego ganacsiga iyo dadka iyo kulli way isu furan dawladaha ajnabiga waxaan ku leeyahay anaga hana kala jiidanina waxa taraysaan miiska soo saaro dadku ha wada arkay anagu ma doonayno dawladaha carabta xoolaha badan haysta oo bukhalada ah oo aan waxba bixinayno maalin walba aeroboor iyo magaciisi iyo aanu ka baryayno dawladaha reer galbeedka ah oo iyagu naga durugsan oo boqolaal kun oo dad ah noo haya ama malaayiin ku dhow inaad maaragtay wadankaanu oo u silco inuu la aado infrastructure oo marna China loo aado marna halka xoolaha la kaalaya anaga hana kala xisbiyeynina iyagana intaas aan leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullahi